iyo cadaabkii degdejintiisii dalbanaya qaala wuxuu nebi huud yidhi inamaa wax kale maaha alcilmu ogaan oo cadaabkan iyo goortuu imanaya lagu cilmi yeesho cinda allaahi rabbi agtii buu yahay cadaabka waxaan gacanta ku hayaa maaha waxaan maamulayaana maaha gooruu imanaya suuku imana ma aan ogi waanun idinka digay keliyata wauballigukum qirawey aniguse idin gaarsiiyey maa xaqii ursiltu layla diray bihi isaga oo wa an laa tacbuduu ila allah inii akhaafu calaykum cadaaba yawmin cadiim anigu wixii layla diray idin soo gaarsiiyey wauballigukum idin gaarsiiyey maa baan idin gaarsiiyey xaq ursiltu bihi layla diray walaakinii aniga araakum waa idin jeedaa qawman dad inaad tihiin tajhaluuna isna tiraayo iska jaahil yeelaysa oo waxaad garanaysaan ama waa dulmi samaynaysaan oo jahligu waa dulmi walaakinii aniga araakum waa idin arkaaya qawman dad inaad tihiin tajhaluuna iska jaahil yeelay oo xaqaa'iqdii baad diidaysaan iyo runtii halaag baadna ku socotaan falamaa ra'awhu caaridan warkii baaba soo dhowaaday xoogaa kulayl iyo abaar baa ku dhacay roob baa loo baahday baadiyahaasay degnaayeen mawaashi iyo xooliya beeray lahaayeen kolkaasaa waxay arkeen cadaabkiia waxaa loogu sooreeyey daruurta tan dhoolka aan dhahnee weyn ee mayayga noqotee aada u da'da oo dhankii haddana weediyaasha ka timid kolkaasaa la farxoo la boodbooday oo la yidhi waa la waraabayaa alaabbaatana kolka waxaa ku dhacay arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi falamaa goortii ra'ow ay reer caad arkeen hu cadaabka caaridan isagoo dhool dadbana daruur weyn oo dadban goortii arkeen oo cirka dhankuu ka soo baxay buu cirkii ka qariyey haddana meeshuu ka yimid arag waa meeshay ka waraabi jireen mustaqbila awdiyatihim waadiyaashooda isagoo qaabilsano meeshay biyuhu ka soo gadoomi jireen ee toogu ka soo rogi jireen meeshii baa cadaabkii oo aad daruur moodid oo qurux badan oo kii lagu waraabi jiraya iyaguna ay aada u goomanaayeen oo abaar ay haysatay ayay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa waxa soo muuqanaya caaridun dhool weeye ama waa daruur weyn mubtirunaa waana robaynaya marka bari uu ka soo baxo waataan ohan jirnay alla dhool bari ka soo baxay baa dhaan loo negeeya waa sidii oo kale kolkuu xaggaa roobkii kaga yimid qaaluu waxay yidhahdeen haadaa waxaan muuqanaya caaridun dhool weeye ama waa daruur weyn mumtirunaana roobaynayo kolkaasaa la yidhi bal tacabkiinba iska daa inuu yahay daruur aad roob ku heshaan ee huwa isaga maa kii wey istacjaltum aad degdegsanayseen faatinaa bimaa tacidunaa waa idinkii laha bal huwa bashu waa idraab inuu yahay dhool idin waraabiyaa hadalkeeda huwa waxaa muuqanaya ma istacjaltum kaad degdegsateen wey bihi isaga oo waa maxay wuxuu markaadsan daruur ahayn riixun dabayl wey waxa ay daruur moodeenba waa wax dabayla oo aan haddee caadi ahayn oo heer dhaafa oo kara dhaaf oon xisaabsanayn oo waa kii qur-aanka caatiyatin uu yidhi marka waxaa weeye dabaylaha iyo roobabka iyo way qiyaasan yihiin iyo biyaha laakiin markii nabi nuux qoomkiisii la baabi'inayey inaa lamaa tagalma inay xad dhaafaayeen baa rabbi sheegay dabayshan reer caadna riixan sarsaran caatiyatan baa rabbi yidhi bahal kibirto oo qooqday oo xad dhaaftay ahayd kolkaasaa waaba keligeed waxa soo tumanaya oy daruur moodayaan waanaba isu ekaada